magaalada London ee caasimadda waddanka UK ayaa ka dhacay mudaharaadkii ugu ballaarnaa ee ka dhaca magaaladaasi ka oo la soo sheegayo in ay ka soo qayb galeen in ka badan 150,000 oo qof kuwa oo ah xisbiyada midigta fog ee necab ajaanibta iyo soo galootiga. mudaharaadkan oo ay soo abaabuleen dhaqdhaqaaqa garabka kooxda midigta fog ee dalkaasi Ingiriiska Tommy Robinson ayaa waxa uu ahaa mudaharaadkii ugu ballaarnaa ee ka dhaca dalka Ingiriiska waayadan. dibadbaxayaasha ayaa waxa ay wateen calanka Union Jack iyo calanka England, si taa lamidana waxa ay wateen sawirada qaar ka mid ah xisbiyada cunsuriyiinta iyo dadka caanka ku ah cunsuriyadda, waxayna socod ka soo bilaabeen buundada Waterloo ilaa ay ka soo gaareen Whitehall, halkaasoo ay ku qaylinayeen erayo nacayb xambaarsan oo ay kaga soo horjeedaan soo galootiga iyo guud ahaan siyaasadda qaxootiga ee u dagsan dalka Ingiriiska. qaar ka mid ah mudaharaadayaasha ayaa watay sawirada Charlie Kirk oo ahaa nin lagu dilay toddobaadkii hore dalkaasi Mareykanka oo u ololeynaya xisbiyada midigta fog. si taa lamida kuwa badan oo ka mid ah ayaa waxa ay xirnaayeen koofida MAGA ee lagu yaqaano madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump, waxa ayna wateen boorar ay ku qoran yihiin dhaleecayn ku wajahan ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ingiriiska Keir Starmer iyo sidoo kale qoraale ay ka mid yihiin guryahooda u dir oo ay ula jeedaan soo galootiga iyo qaxootiga ku nool dalkaasi UK in dalalkooda lagu celsho. waxaa lagu soo waramayaa in qaar ka mid ah mudaharaadayaasha ay isku dayeen in ay jeeraan xayndaab ay sameeyeen booliska, kuwa oo la soo sheegayo in ay ku dhaawacmeen 26 askari oo boolis ah, iyadoo lagu soo waramayo in 4 ka mid ah uu dhaawacoodu aad u culus yahay oo qaar ilkaha burbureen halka qaar sanka laga jibiyo, sidoo kalena kuwa kale uu madaxa dhaawac culus ka soo gaaray oo qaarkoodna iyaga oo aan miir qabin goobta laga waday. kooxdan midigta fog ee Robinson ayaa waxaa hogaamiya Stephen oo ah nin ka soo jeeda asal ahaan Yuhuudda, waxa uuna aad uga soo horjeedaa soo galootiga ku dhaqan dalkaasi Ingiriiska. dhanka kale isla magaalada London ayaa waxaa ka socday qayb ka mid ah mudaharaadyo kuwa ka dhan ah kuwa oo ay isugu soo baxeen ilaa 5,000 oo qof oo mudaharaadayaal ah, kuwa oo taageersanaa siyaasadda soo galootiga iyo in ajaanibta ku nool dalkaasi Ingiriiska ay nolosha England qayb ka yihiin oo aan loo baahnayn in dalka laga raacdeeyo. Stephen oo ah hogaamiyaha kooxdan midigta fog ee Robinson ee mudaharaadkan soo abaabulay ayaa ku tilmaamay in uu yahay mudaharaadkii ugu weynaa taariikhda waddanka Ingiriiska, waxa uuna intaa ku daray in kacdoonkan bilowday uu socon doono. dadka Ingiriiska ayaa arrintan aad uga naxay, waxa ayna ka muujiyeen walaac aad u xooggan oo ku saabsan sida ay xaaladdu noqon doonto. mudaharaadkan ayaa intii uu socday waxaa dibadbaxayaasha la hadlay oo khudbado kala duwan u jeediyey mas-uuliyiin ka tirsan xisbiyada midigta fog ee Yurub iyo sidoo kale Mareykanka, waxaana ka mid ahaa dadka hadallada meesha ka jeediyey Elon Musk oo ah milkiilaha Twitter ama X, ka oo sheegay in loo baahan yahay in dadka Ingiriiska ah ay u istaagaan sidii ay siyaasaddan khalafsan ee madhalayska ah ee dowladda Ingiriiska ajaanibta ku soo gurayso ay uga hortagi lahaayeen. waxa uuna ugu baaqay in ay mabda'oodaas u dhintaan ama ay ka xoreeyaan Ingiriiska ajaanibta ku soo qulqulaysa. si taa lamid ah ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay siyaasiyiinta xisbiyada midigta fog ee Faransiiska oo uu ka mid yahay Eric iyo Bistor oo ah xisbiyada midigta fog ee dalkaasi Jarmalka. Elon Musk ayaa waxaa la xasuustaa in sanad ka hor uu bartiisa Twitterka ama X soo dhigay calanka Ingiriiska isaga oo ku soo hoos qoray waxaa lama huraan ah in dalka Ingiriiska uu ka dhaco dagaal la sokeeyo si la isaga xoreeyo ajaanibta iyo soo galootiga. waxaana xaqiiqo ah in muddooyinkii dambe ay sii kordhayeen ajaanib nacaabka ka jira guud ahaan Yurub, waxaana sii xoogaysanayay xisbiyada midigta fog kuwa oo ku baaqayay in Yurub ay dib u xoreyn samayso oo ay dadkeeda ka xoreyso ajaanibta soo galootiga ah ee dhaqaalahooda iyo horumarkooda la qaybsanayo. waxaana mudaharaadayaasha qaarkood ay sheegayeen in Ingiriiska dambiyada ka dhaca ay qaybta ugu weyn leeyihiin ajaanibta, inkastoo daraasadihii ugu dambeeyay ee la sameeyey ay muujinayeen in 22% dambiyada ka dhaca dalkaasi Ingiriiska ay ku lug leeyihiin haweenka, halka 78% ay ragga yihiin kuwa ka dambeeya dambiyada, iyadoo wadarta guudna lagu soo waramayo in ka badan 94% in ay yihiin dad Ingiriis ama British ah, halka 5% ay yihiin
soo galootiga, taa oo muujinayso in xitaa dembiilayaasha lagu eedeynayo soo galootiga aysan wax weyn ku lahayn. Halka wararka kuwooda ugu doorkaroon idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.